waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii koowaad sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, goor lagu malo weyn yahay inay ahayd bilowga qarnigii 19aad ayaa wiilwaal wuxuu ka soo ifbaxay galbeedka soomaalida, gaar ahaan banka Jigjiga iyo dhulka u ogogale ee ay iyadu ugu magaca dheer tahay. waxaa dhalay garaadkii qoladiisa u madaxda ahaa ee la odhan jiray garaad faarax garaad xirsi. wiilkaasi markuu u dhashay ee loo mashxaradayna wuxuu garaadku ku sameeyey isaga aabbihiis. wan weyn intuu gowracay ayuu xirsi ugu magac bixiyey. waxay malaha la ahayd magacdariddaasi inay keeni karayso inanka uu awowgii ka raaca tilmaamihii wan wanaagsanaa ee uu lahaan jiray amaba lagu malaynayay. iyada oo weli xambaarsan ayay hooyadii waxay xirsi ula kacday reer abtigiisa oo degaankoodu xagga bariga ahaa. sabab ku jiidayna looma sheegine halkaas ayay muddo dhowr gu ah kula maqnayd. habkii nolosha reer aabbihii iyo midkii reer abtigii way kala duwanaayeen. halka reer abtigii ay giddigood xoolo raacata ka ahaayeen, reer aabbihii xoolaha ka sokow waxay ahaayeen qodato dalagga beerata oo inta badan aan guurguurina meelo aan kala durugsanayn ku nagaata. sida la og yahayna labadaa hab nololeed dadka ku kala abtirsadaayay way kala anshi duwan yihiin. muran badan iyo firfircooni xaddhaaf ah ayaa xoolo raacatada lagu xantaa, beeraydana deganaan, wax u fiirsi badan iyo fakar aamusan. dhirif iyo gacanta oo ka soo horraysa ayaa xoolo raacatada lagu tilmaamaa. kol walba dirir bay u tooghayaan, waxayna ku maahmaahan dagaal gondahaaga ayuu ka dhashaa. beeraydana nabad jacayl iyo dulqaad badan ayaa lagu sheegaa. waa laba dabeecadood oo labada hab nololeed ay ku kala gedisan yihiin, dadkoodana lagu kala sooco. xirsi oo kuray ah, reer abtigii iyo geeltirannimana ku soo barbaaray, ayaa galbeed iyo reer aabbihii dib ugu soo noqday. ileen waa inankii garaadkee markiiba daymo siyaada ah ayaa loo yeeshay. mase wiilasha kale ka fudfudud, wiilasha kale ka firfircoon, wiilasha kale ka waxtoyasho badan, wiilasha kale ka su'aala dhiiran, wiilasha kalena ka qalab badan oo ka dagaal aqoonsan. intii meel isugu timaadaba isaga unbaa ka soo muray oo wax u teeleeyey. isaga oo aan la magacaabin ayuu madax isaga dhigay. isaga oo aan cidi u shuuminna waa u teliyey. odayadii degmada midkood oo u fiirsaday ayaa yidhi, warkani waa jinni boqor. naanaystaas ayaa muddo loo yiqiin, inkastoo waayadii dambe ay ka hadhayoo loogu beddelay naanays kale oo ku dhegtay, taariikhdana uu ku galay. waa naanaysta uu caanka ilaa haddaba ku yahay ee ah wiilwaal. weli isaga oo aan qaangaarin ayaa geesinimo dheeraada lagu arkay loona qira. maalintii uu 15 jirsaday ayuu colwadeen noqday. guutooyinkii tolka ayuu ammaanduule u ahaaday. da'daas oo kale wiilal ka fooray mooye cid kale hogaamiyenimo kuma hanan jirin. dagaal aqoon, fardadhaarinimo iyo gacanfudayd lala yaabay ayaa barbaarnimadiiba lagu bartay. weligiisna siday weliyeen cid ay isqabteen nabarka lama hormarin. feejignaan siyaada ah iyo tuhun joogto ah oo dad oo idin uu ka qabay ayuu caan ku noqday, kuna tilmaanaaday. had iyo jeer warmihiisa iyo qalabkiisa dagaalka gacantiisu meel aanay ka gaari karin kuma uu ogaan. aabbihii garaad faarax baa dadka u boqranaaye, isagiibaa haleeyeyoo inta odaygiiba la iloobay ayaa magacii wiilwaal lagu hadaaqay. nin waliba waa ka baqay, nin walibana ilaahu gacantiisa iga nabadgeli ayuu ku ducaystay. duqii dhalay oo weli ifka saaran ayuu taliyey oo waxna dilay waxna darajeeyey. hadal uu yidhi cidima diidi karin mana asraari karin. nin malagiis galay mooye nin maya kula dhici karayna lama sheegin. geyigu waa geyi colaadeed, dhaca xoolaha iyo dilkuna waa joogto. caanawaa iyo cayrnimo ninkii ka baqaayay wuxuu u tafaxaytay geel uu xoog ku soo taabo. kii dakana laga qabayna kii ka hayay ayuu ka doontay, birtana u tuntay. soomaalida ka sokow waxaa mar walba laga dareen qabay gaara madow oo iyada iyo bartiruhu ay col xiira ah ahaayeen. markaas buu garaad faarax soo rogay xeerar cusuboo tolalka kale ee soomaalidu aanay aqoon jirin. wuxuu guddoomiyey in la ururiyo niman soo jeedayow loo bixiyey oo hawshoodu tahay degmada cirifkeeda inay habeen oo dhan ku wareegaan, inay ilaaleeyaan raad col oo soohdintooda soo galay. haddii ay wax arkaan ama ay wax dareensadaanna ka soo digaan. waa waardiye ama waa gaadh sida aynu hadda u naqaan. wuxuu kaloo garaadku guddoomiyey reerkii ay nimankaasi u tagaanba inuu siiyo neef ishkin ah oo ay qashaan, baryana ay ku noolaadaan. raggaas
ayaa wiilwaal lagu daray iyada oo markaana la sinaayo cid baa madaxa iyo cid baa manjo ah aan la odhan. Ha yeeshee wiilwaal oo kale kama suuroobi karin ragba inuu la masoobo. dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu malaha is yidhi, nimanka kula socda maxaa torow ku fashaa si ay u caddaato inaad adigu tahay laboontiga keliya ee aan la labayn. wuu fakeray, maanka iyo maskaxda ayuu ka shaqaysiiyey. alla ilaahay hadda ayuu helay. galabtii dambe ayuu inta shiriyey ciidankii wuxuu u soo jeediyey xoolaha kolkii ay qashaan oo hilba qaybsiga laysu soo hor fadhiisto in hor iyo abbaato uu isagu yeesho labada cad ee neefka ugu wanaagsan, inta kalena uu ka saami qaato. isla markiiba wada dareeme wax qaybsi ay ku dulman yihiin in guddoonkaasi xambaarsan yahay. cidise way ku dhici weyday inay dood ka celiso oo go'aanka wiilwaal kuma ayaa ka hor imaan kara oo naftiisa nacay. hawlaarsan iyo guddoon ayaa dharaartaasna lagu kala dareeray. haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey. markaas bay inta shireen waxay tara ku goosteen, war wiilwaal labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo, dhaxalna uma uu heline aynu mid ka reebno. taladaas ayaa lagu heshiiyey. waxaase haddiiba la isku afgaran waayey oo cid dhabarka u ridata la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay. wax fooda la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan 3 nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya. ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshid. hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihiddeeda la qaybsado. waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal, kan labaadna uu yidhaahdo labada cad, kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshid. fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo degdeg u fadhiistay. markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay. kii saddexaad kolkii uu u hogbaday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiilwaaloo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday. daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday. labada bowda ayaa jareeyey. garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey. nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay. halkii laga filaayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagaxi badnaa ka yeersiiyey wax aanu uurku doonayn afkusa ka xaday. markaas buu yidhi lug laguugu dar. kolka ma war baa yaal xan mooyee sow in loo bareeraa ma dhiman. maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma garoobin. sheeko iyo mahmaah lagu maadaysto soo ma ay noqon. qayb labaad oo ka mid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, weli isaga oo aan la shuumin, isaga oo aan weli garaad loogu yeerin ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay. coofka ayuu kor u taagay. wuxuu islo ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayoo inta miciyihii soofaystay qooq la golongolay. goob alla goobtii la isaga hor yimidba libin buu kala laabtay. colkii uu hoggaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday. arlada ayuu habiila'aan u taxaashay. hiyigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kala mid ah amaba ugu soo dhowaan kara. ragannimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiire ayay ahaayeen. dhab wuxuu u rumaysnaa mahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso. magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba 30 gu ayuu baarka ka jaray. xoog iyo garashaba wuu istaawiyey. nin walibana bannaanka ayuu ka maray. maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidhifka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaay la soo joogsaday. hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow, garaad faarax eebba ha u naxariisto, adiga iyo annagana haynaga samirsiiyo. waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa, taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay, aadna uga walbahaaray. waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay. madaxa ayuu foorarayey. cabbaar kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen.
shownin la oran jiray khayre shirwac iyo garaad faarax ayaa muddaba eed lahaan jiray. wuxuu khayre garaadka ka taban jiray in badan oo uu tolka wax u qaybiyey inuu isaga ka eexday. cadaalad darro gooni ugu dhacday ayaa maankii ka qaaday. kolkaas buu dhagar ku tashaday. dhiiggii garaadka ayaa u hilaacay. waxaaba iska hor caddaysay intuu dilo garaadnimadaba inuu isagu kala wareego. dabadeed iyada oo la degan yahay hoos saaran meel la yidhaahdo oo geedkii shirka lagu dhan yahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayre soo muuqda. waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhexda haysto. wuu soo dhowaaday. nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu warramay isaga oo aan odhan ayuu shirkii gabay ku bilaabay. waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar malab ah oo meel qotoma oo rag wada quuto khayrow aduunii ka qatanow qaadan kari maayo. oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midig ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay. isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hooto halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen. khayre shirwac kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meeroo adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay. anna waan ka qaday. laba xajuub oo aan kala fogayn ayaa galabnimadiiba khayre iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaco. dambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geerida aabbihii ka sokow fariin kale ayuu wiilwaal u siday. odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro. markaas bay wiilwaal tala ku caddaatay. laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday. wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digniin helay col mahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona. karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidlo ka heli doonaa. nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo. midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxay geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si degdeg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xiro. ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kala hagta waxna u qaybisa. wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada hawaysan karaysa? jawaabtu waa maya. ma cid baa kugula murmi karta? iyana jawaabteedu waa maya. cabbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go'aan gaaray. wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u toog hayo tolkana uu ka caabiyo. dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaaya ayuu u yeeray. wuxuu u dhiibay go'iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yiqiineen. markaas buu ku yidhi maradan qaadoo kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo. dabadeedna iyada ha la caleema saaro oo caana ha lagu shubo hana loo dabaaldego. aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo. waa la yeelay. waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horrayn. wixii garaadada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun u suuro gashay. haddii khayridii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax. muxuu la soo bixi doonaa? muxuu noqon doonaa? anshigiisa wax ma iska beddeli doonaa mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa? su'aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjoogga u ahaa kuwii ay maalintaa isweydiiyeen.